الحمد لله وحعاو فرحد وين نوعه مسجد كينا مسجد شهداء أنا قاعد كهذا ليا ودي ده مسجدك يودك مصلين تاي مساجدك عامرة رمان تيمبا وحفرحد النوع ذا جزاكم الله خير الجزاء شيخنا قالقة وهو قليل عن التعريف الشيخ حسين علي إذا كنت يا سيدي كنت قلت يا بالله أنا وقدر يانو بركة waxaan dii sheegaya barakallahu fiikum wax weyn ayaa caawinoo suura galay idinkana dalabku insha Allah taala waa idinka muuqda muhaadaradeenu ciwaankeedu ad-diinu nasiixa weeyi waxaan isleeyahay waa lubul mawduuc si fiican baynu dhageysan doonaa insha Allah taala waxaan aad iyo aad faraxtiin noogu ah maadaama ilaahay nasiib inoo siiyay culimada ma sha Allah adduunyada dacwada ilaahay subhanahu wa taala u furay inaguna hamiga inaynu xambaarno ayuu baynu insha Allah diyaar garoobi doonaa شيخنا وحن الله كبر سبحانه وتعالى أن يجعل في ميزان حسناته سبحانه وتعالى إن الله ميزان حسناتك إلهي وقدره. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله sidaa walaalkeen baa inoo sheegay waxaa inaga muuqda diin jacayl khayr jacayl masaajid jacayl waana nicmo weyn oo ilaahayna siiyay ilaahayna nagu mahdino weeyaan dad badan fadhiga masjidka ma karayaan ilaahay jalla wa ala wuxuu na jeclaysiiyay inaan masaajida fadhiisano oo masaajida ku i'tikaafno oo ilaahay hadalkiisa aan qadarino maaha shakhsi waxaad u timaadeen waa ilaahay kalaamkiisa waa ilaahay diintiisa inaan maqallo inaan ilaahay kalaamkiisa maqallo oo diinteena macaan ilaahayna siiyay aan isku baraarujino waayo waa Luqmaan al-Hakim baa lagu yiri diintan iyo xigmadan halkeed ka heshay baa lagu yiri Luqmaan waa kii ilaahay kaga warramay qisadiisa fi suurati Luqmaan wuxuu majlisna aniga fadhiista oo waxbaan ka qaataa majliska kalena ana la fariisto waxbaan siiyaa buuli yani majliskan aniga fadhiisanayo waxbaan ka dhageysan waa ka baran waa ka faa'iideysan majliska aan isleedahay waa dhaantaan inta la fadhiistan wixii aan ku dhaamaan u sheegay buuli sidaas ay markaa xigmadan ilaahay ugu siiyay buuli nin xakiim buu ahaa xigmadiisa waxaa kamid ah dardaarankii ilmihiisa uu siiyay waa ka ilaahay quraanka inoogu sheegay sida ubadkiisa u tarbiyadeenayay marka majaalistan iimaaniga ee cilmiga ee masaajida dhexdeeda inooga socda khayr badan ma ka faa'iideysanayna diinteena macaan baan isku baraarujinaynaa mar walba la isku nasteexayo oo la isbaraarujiyo oo caamadii culimadu cilaaqo wada yeeshaan oo mujtamaca muslimiintu masaajida ay ku xidhnaadaan waataan ku gaarayna horumar iyo midnimo weeyaan sidaa darteed buu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi diintu waa nasiixo ayay nasiixo u tahay baa nabiga lagu yidhi ilaahay sidee buu addoonku ugu naseexaynayaa markaad ilaahay jalla wa ala aad garatid ee aad caabudid
cibaadadii ilaahay aad u badhax tirtid طريقة النبي محمد عليه الصلاة والسلام هذا إلهي كعبده إلهي وضنا صليحيسي كتابك إلهي جل وعلا سيد وقلنا صليحين سيد دينتو كتابك النصيحة وقتها مركا قرآنك إلهي إلا برتو إلا أخريو إلا تدبر آيات كيسا قرآنك إلهي جل وعلا مركا الله أخرساني إلا فكرو وحي قرآنك معروف وكفرنا التي مادد wixii munkar quraanku ka reebana aad ka reebtoonaatid wixii quraanku xalilena aad xalaashatid wuxuu quraanku xarimena aad xaraan u aragtid aad quraanka ilaahay baratadu umada aad bartid sidii loo fidin lahaa loo bari lahaa loogu dhaqmi lahaa la isku xukumi lahaana aad ka shaqaysid naam kitaabka ilaahay waad u nasteexaysid rasuulkiisa muhammad alayhi salatu wassalam saad ugu nasteexaynaysa rasuulka ilaahay هذا رسول كيسا أضيعدد ووحي وناقي النبي كفرنا التي مادد وحي منكر بدع خرافات شركية هذا أتكرب توناتد وأظن أصلح حيث النبي محمد عليه الصلاة والسلام واتي النبي أنه جعل عينه مرول بأمدي سكاركم وحاول النبي جعل عينه أركو أمدي سو إلهي عابد إيسا أمدي سو إلهي بري إيسا أمدي سو إلهي الرجين إيسا أمد أسعو تسيد إلهي والربي مركو أرك النبي وفرح جري عليه الصلاة والسلام أئمة المسلمين تسيروا نستحين إنسان هذا طاعة الله والسمع والطاعة لأولي الأمر إنت أنا تكوارك وح شرعك إلهي جل وعلا كقب حيان وضو صبرته وضو دعيسه وضو حي معروفة أتكوى دعدو وضو نستحين عامة المسلمين تسيروا نستحين إنسان هذا القرآن كإلهي سود جيدين النصيحة الدين النصيحة بالنبي قولي وجوامع الكلم دينتو waxay nasiixa caamada ugu tahay waxa weeyaan markaad xaq ilaahay aad garatid xuquuqda bini aadamkana aad iska ilaalisid ihsaan laga helo dadka dabeecad wanaagsan aad kula dhaqantid wanaag adigu aad u sameeysid dhibtay ku geysanayna aad iska cafidid kii ku wanaajiyana wuxuu nabigu kii ku xumeeyana wanaaji kii ku dulmiyana iska cafibu nabigu yiri ka wixiisa ka xarimana waxaaga si kama aragtaan xumaan kugu sameeyeen adigu wanaag u sameey diintaas diinteena islaamka laga bilaabo ilaahay xuquuqdiisii ilaa khalqiga ilaahay kugula abuuray ee kula degan xaqoogi diinta ku sheegaysa hadaad ku dhaqanto noloshaada adduunyada waxaad ka samaysatay janno ay adduunyadu ku noqonaysaa janno imaam ghazali rahmatullahi alayhi ayaa oran jiray jannada adduunyadu waa ilaahay macrifadiisa jannada aakhiraduna waa ilaahay aragtidiisa jannada adduunyada sirta nolosha dadku maanta ay raadinayaan qaar lacag bay ka raadinayaan qaar aqoon bay ka raadinayaan qaar aqalay ka raadinayaan qaar masab bay ka raadinayaan qaar dhoof bay ka raadinayaan sirta nolosha waxay ku sheegaan culimadii rabbaaniyiinta ahayd jannada adduunyadu waa ilaahay macrifadiisa waa inaad garataa ilaahay garo garashadeed garanaysa ilaahay garashadii nabi maxamed iyo saxaabadu alla ay garteen waa inaad garashadaas ayaa micyaarul macrifa ilaahay macrifadiisa micyaarka la doono umadu inay gaadho waa iimaankii nabi maxamed ilaahay qalbigiisa uu dhigay iyo iimaankii saxaabadu nabiga ay ka qaateen taasaa micyaarul macrifa leeyahay micyaarul iimaan والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إنه صحابة إيمانكوغو هلك إلا دوني إنه قاري قرآنك إلهي كشيكي وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها إلهي قلبي وغوحو لقي كلمة التقوى ابن عباس وحيري وكلمة التوحيد ويان كلمة التوحيد وكانوا أحق بها وأهلها با إلهي يري إنا كلمة إيمانك إخلاصك قلبي وغا إنا كوغا لدي سنون قلبي وغا دقننا با إلهي يري أهل بيوها ينو حقنا وأولها ينو قلمين با إلهي يري وإذا قيل لهم الناس آمنوا كما آمن الناس أي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سيدا كواس إلهي أرميين مركا أرميين ليلة دبا إلهي سيدا كواس إلهي أقرتين إلهي أقرتا كوا مثالك الله سوق هذا وأصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام مركا حقوق دا إلهي نقول يا هي حق أقهر يا وامحي وإلهي معرفة ديسا جنة الدنيا وإلهي قرأ جنة آخرتنا وإلهي أركتديسا
ونبينا عليه الصلاة والسلام